Sudaan Salebaan cali Ismaaciil oo kamid ah salaadiinta dhaqanka ah ee gobolka Awdal oo maanta qaar kamid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa uu ka hadlay dhalinyaro dhawaan xabsiga loo taxaabay oo xusay maalinta 4 February taasi oo maalmihii u dambeeyay hadal haynteedu taagneed. ay kolka u horeysa horta dad baa dhintay dembi maaha dhalinyartaasi ma dambaabin wax ceebana ma ay samayn sida wax u dhaceen haddaan tilmaan ka bixiyo STO cadhoonaysa waxay soo gashay Boorama iyo dila yay soo gashay iyadoo wax iska caabinahi jirin waxay doontay fashay waxay doontay dishay sidaasay iyagu ku dhamaysteen halka hore waa sida xaalkeedu dabeed waxa ka dambeeyay nabadayn lagu qabtay burco meelo badan oo kale lagu dhintayna waa jireen oo Soomaali oo dhan way isku wada dhimatay waqtiga nabadayn baa ka dambeysay burco lagu qabtay wixii hore aan iska dhaafno dawlad dhisano wixii lagu heshiiyay waxaas booha dawladii tii Hargeysa tii la yimid Boorama eed ogeydeen bay ahayd kale suldaanka ayaa waxa uu ka hadlay tabashada reer Awdal ay ka qabaan arrimaha saami qaybsiga isagoo oo sheegay inay wali ka dhursugayaan xukuumadda Somaliland ayaa waxa uu yiri dawladdaasi sideedan u dhaliilsanahay wixii aan waajib ku lahayn kama aanu helin goor walba waa cabanaa sanad walbana waa hadalaa madaxweyne kasto yimaad waa la hadalaa wali saamigii aan ku lahayn kama aanu helin waad wada ogtiin inaan dhawaan madaxweynaha la hadalay waa ka dhursugaynaa wixii ka soo baxana waan sugaynaa dawladii iyo wixii soo dhacay horta waa sidaa gabadhii suldaanka ayaa waxa uu fariin u diray barasaafka gobolka Awdal iyo maayarka degmada Boorama isagoo noogu baaqay in sida ugu dhaqsaha badan loo sii daayo dhalinyarada ku xidhan xabsiga Boorama ayaa waxa uu yiri halka dabadeed waxaan leeyahay barasaabka iyo maayarka iyo cidii kale ay khusayso wiilasha halay soo daayo gacantana halayga soo saaro iyaga wixii waana aan odhanayaana waxa weeye waxa la yiraahdaa ninan ku furaynayaanu ku reerin waanadeeduna waa inta weeye maqlay dhawaan xaalka maxaa laga bixinayaa xaal ma jira waxa la yiraahdaa suldaanka xaal bixiye suldaanka xaal bixinaya suldaanka maxaya suldaanka la qaatay waa badneed waxaas weligayba waa nagu dhici jiray waxaas gobsana lagu dul goosanayo waxna mara maaha waxaan u dhalanayna maaha waxa weeye dhalinyaro tu xidhan iyo tu dibad joogtaba hadda ka hor dalka anaga ka soo talinaynay wali ma aanu dhimanay nala tashada waa Jamaal Umar Tubeec telefishinka caalamiga ee badda cas 24 TV magaalada Boorama.